jariirada The Guardian ee ka soo baxda dalka Britain ayaa walaac weyn ka muujisay xanuun aan la garanayn oo ku faafay tuulooyinka iyo degmooyinka ku dhow goobaha shidaalka laga qodo ee DDS. warbixinta oo ay qoraalkeeda iska kaashadeen Juweria Ali iyo Tom Gardner ayaa halkan ku soo koobaya nuxurkeeda. dadka qorayaasha maqaalka iyo jariiradu la kulmeen ayaa sheegay in cudur aan horey loo aqoon uu dilayo dadka ku dhaqan dhulka uu ku fadhiyo mashruuca horumarinta shidaalku. astaamaha xanuunka ayaa lagu tilmaamay indhaha iyo calaacalaha gacmaha oo midabkoodu huruud noqdo, dhiig ka yimaada sanka iyo afka, jirka oo barara iyo qandho. astaamahaas ayaa aakhirka dila bukaanka. lama garanayo waxa keenay xanuunka cusub, balse dadka deegaanka ayaa rumaysan in uu ka dhashay kiimikada iyo qashinka ceelasha shidaalka ka soo dareera oo ku darsama biyaha la cabo. dowladda dhexe ayaa diiday jiritaanka dhibaato caafimaad ama deegaan oo mashruuca leeyahay. hase yeeshee dadka ku dhaqan aagaas, shaqaalaha caafimaadka iyo mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xaqiijiyay cudurka cusub ee lagu tuumay waxyaabaha kiimikada shidaalka oo saameeyay biyaha la cabo. gudoomiyaha degmada Dhoobweyn ayaa sheegay dhimashada 2,000 oo qof ilaa 2014. tirada guud ee dhimashada ayaan la sheegi karin maadaama dadka reer guuraaga ahi dadka ka dhinta aasaan iyagoo aan dowladda la socodsiin. shirkadda Poly GCL oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa ka gaabsatay inay arrintan ka hadasho, laakiin injineero horay kambaniga ugu shaqaynayay ayaa xaqiijiyay in kiimiko iyo qashin kale ka dareeraan goobaha shidaalka laga qodayo. dadweynaha gobolka ayaa markasta walaac iyo shaki ka qaba mashruuca iyo saameyntiisa dhanka caafimaadka iyo deegaanka. waxaa kale oo ay rumaysan yihiin in aan wax la tashiya lagala sameyn sida ay wax u socdaan. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shide oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Saleebaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka warfaafinta Somaliland oo arrinkaas ka hadlay, ayaa sheegay in booqashada wafdiga Itoobiya aysan la xiriirin wararka sheegaya in loo gogol xaarayo imaanshaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Ahmed. wafdiga wasiirka maaliyadda Itoobiya waxa uu ahaa mid salka ku haya xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada dal, ayuu yiri wasiir Saleebaan. sidoo kale waxa uu tilmaamay in mowqifka Somaliland ee la xiriira imaanshaha Soomaaliya uu yahay mid cad. qulqulatooyinka ka taagan galbeedka deegaanka Oromada ee dalka Itoobiya si ay wax uga qabato waxay dowladda Itoobiya dhawaan deegaanadaasi ka howlgelisay ciidamo ammaanka sugo. inkastoo ay dowladdu horay u sheegtay in ciidamadeeda ay u howlgelisay inay shacabka weerarada uga imaanaya kooxaha hubeysan ay ka difaacdo, haddana sida baraha bulshada la isla dhaxmarayo waxaa ciidamada dowladda Itoobiya laftooda lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dhibaatada shacabka loo geysto. haddaba abaabule ku-xigeenka ciidamada Itoobiya General Birhanu oo la hadlay BBC-da laanteeda Amxaariga oo amuurahaasi iyo guud ahaan xaaladda amniga dalkaasi Itoobiya waraysi la yeelatay, ayaa sheegay in ciidamo tiro badan oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga laga howlgeliyay galbeedka deegaanka Oromada, gobollo ku yaalo taliska ciidanka halkaasi ka taliyana adeegyada internetka iyo telefoonada gacantooda ayay ku jiraan. General Birhanu wuxuu si adag u diiday inay ciidamada uu isagu madaxa u yahay inay shacab dhibaato u geystaan. arrintaasi waa khalad. xooga hubeysan ayaa shacabka dhibaatada ku haya labadii sana ay dhaqdhaqaaqooda wadeen. marka dowladda si ay sharci iyo kala dambeyn uga soo dabaasho deegaanada ay dhibaatooyinka ka jiraan, dowladda waxay ka howlgelisay ciidamo tiro badan, ayuu yiri. ciidamadu howlaha ay qabanayaan waxaa kow ka ah inay shacabka caadiga iyo burcadda ay kala saaraan, burcaddana ay tallaabo ka qaadaan. hase yeeshee wararka baraha bulshada la isla dhexmarayo sida in ay ka duwan yihiin. waan ogsoonahay ciidamada qarankuna haba yaraatee wax dhiba uma geystaan dad shacaba, ayuu yiri. abaanduule ku-xigeenka ciidamada Itoobiya General Birhanu wuxuu sheegay in ciidamada qalabka sida inay galbeedka Oromiya ay ka wadaan howlgal ballaaran oo amniga iyo sareynta sharciga lagu soo celinayo. dowladuna waxay aamintay in kooxahani marnaba isbedeleen, waxa kaliya ee wax loogu faansin karana ay tahay in kaliya xabad lagala hortago, ayuu yiri. adeegyada telefoonada internetka ayaa laga jaray galbeedka deegaanka Oromada ay ciidamadu howlgalka ka wadaan, waxay suurtagelisay in tallaabada laga qaadayo maleeshiyaadka dagaalada halkaasi ka wada laga guuleysto, ayuu sii raaciyay General Birhanu. koonfurta deegaanka Oromada ee dalkaasi Itoobiya gaar ahaan gobolada Guji iyo Boorana waxaa sidoo oo kale ka socda dagaalo hubeysan oo ay halkaasi ka wadaan maleeshiyaad is abaabulay oo ay ciidamada dowladuna dagaal ballaaran kula jiraan bilooyinkii u dambeeyay.
madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa ku kulmay magaalada Juba. labada dhinac ayaa heshiis rasmi ah ka gaaray khilaafkii muddada dheer jiitamayay ee u dhaxeeyay labada dhinac. madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa u magacaabay hogaamiyihii hore ee mucaaradka Riek Machar madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowladdiisa maalin kadib markii ay gaareen heshiis dhismo dowlad midnimo qaran. heshiiska labada dhinac ayaa u qotoma in la wada dhiso dowlad wadaag lagu yahay. sidoo kale madaxweyne Salva Kiir ayaa aqbalay dalabkii ugu weynaa ee mucaaradka isagoo gobolada dalka oo dhammaa 32 gobol ku soo koobay 10 gobol. waxaana maanta lagu waday in lagu dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee dalka South Sudan. sidoo kale Riek Machar ayaa isagana loo dhaarinayaa madaxweyne ku-xigeenka South Sudan.